مساجد أو أدو حافظيسي أصدقوا إمامك أها صلاة المغرب كي أصدق عدتك كدهي بعد مركو صوت كذي وبنانك ويستهدين حبدا ويكتالي سيد اللي إيش يغيدتك يقول جياشا واسداس maxaa lagu magaad isleedahay sheekhan oo uu eersaday oo keentay in xadgudubkan lagula kaco horta aniga shaxsan ahaan waxaan ka mid ahaa culimada oo asaga asxaabtiisii oo aad ugu dhow oo muqarrabiintiisii ayaan ka mid ahay kowda wixii ahligiisii ku sokoow culimada asxaabtiisii aad ugu dhow ayaan ka mid ahay aniga shaxsan ahaan wax hadda aan ku sheegi kari faahinow oo sheekhan oo caalimka oo waayilka oo ahlu khayrka waxaasa lagu maaday hadda aan ku dhahi kari ilaahay ya markhaati iigu hadda kuma sheegi kara maxaad nooga sheegi kartaa noloshiisii iyo taariikhdiisii iyo intii uu dacwada ku jiray sheekha wuxuu ka dhashay tuulo oo ka mid ah tuulooyinka buurha kabe oo loo yaqaano tuulo la ero ee rowla oo aabihiis uu ku duugan yahay ajidaadiisii ay ku duugan yihiin wuxuu ka dhashay 1949 culimada asaga wax ka bartay waxaa ka mid ah aabihiisii allah u naxariistay shariif nuurow aamin waxaa ka mid ah sheekh cabdisalaan sheekh cabdi aadan waxaa ka mid ah sheekh axmed sheekh maxamuud ugaarey iyo waqayruhum culimo fara badan oo ajille ah raggii asaga lasoo kulmay sheekha wuxuu ahaa intaan ku ogahay waa nin daaci ah waa tabci ah waa nin xagga maaragtay laa yakhaafu fillaahi lawmata laa'imin dadkii ilaahay ku tilmaamay ayuu ka mid ahaa haddii shareecada islaamka oo la qarariyo ama qalad lagu suubiyo dadka ilaahay dartiisii oo maaragtay isu taago ayuu ka mid ahaa wuxuu ka mid ahaa intaan ku ogaa dadka masaakiinta aad buu maaragtay arkay u kaalmayn jiray nin gacan furun buu ahaa nin ahlu khayr intaan ka warqabo oo maaragtay aalubeed oo codkar oo aftahan muxaadarooyinka jeediyo ayuu ka mid ahaa sheekha intaan ku ogahay raxmatullaahi caleyh marka laga soo tago hawlahaas dacwada ah ee uu ku jiray sheekhu muddadii aad taqaanay waxyaabaha kale uu ka shaqayn jiray ama waxyaabihii ugu dambeeyey ee aad xusuusato ee uu ka shaqeeyay maxay ahayd waxyaabaha asaga maaragtay aad ugu shaqeeyay waxaa ka mid ah dhinaca musaalaxada dib heshiisiinka hadda waxaa u furanaa xafiis oo jamciyat culamaa soomaal lilmusaalaxa xafiiskaas ayuu ka ahaa guddoomiye wax allaale wixii maaragtay oo dhibaato ah deegaanka baay iyo bokool wixii oo isqoon ama iskhilaaf ninka hormuudka u oo maaragtay ayuu ahaa shariifka intaan ogahay ma jirto waagii dawladii dhexe burburtay ilaa hadda khilaafaad oo deegaankaas ka salaysan ilaa shariifka hormuud buu ahaa dhinaca musaalaxadana wuxuu ka mid ahaa kulli waad wareysan kartaa qof kasta waa dadka hormuudka ayuu ka mid ahaa